عليكم ورحمة الله وبركاته. subax wanaagsan. Eh, halkan waxaan ku duubi doonaa insha Allah July lagu jiraa. Meesha waxaan ku bilaabi doonaa koorso la xiriirta forex bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda insha Allah hadduu Ilaahay raalli ka noqdo. Marka bilow waan kasoo bilaabeynaa, yacni koorsadeen fiidiyoyaal kooban ay leedahay saddex qeyb u kala qaybi doonaa. Saddexda qayb maxay kala noqonaysaa beginner oo bilowga ah oo meesha bilowga ahayd, iyo intermediate u kala qaybiyeyna, iyo advanced. Intermediate iyo advancedka fiidiyoyaal kala duwanaa ka sameeynaa, laakiin marka ugu horeysa waxaa ku bilaabeynaa beginnerka ku bilaabeynaa, kadib haddii laba fiidiyo camal inay noqotaa rajeynaa, and then maxaa ku xijiyeynaa intermediate-ka, advancedkan meesha ugu dambeysa waaye insha Allah. Markay soo socod wanaagsan. beginnerka qaybta ugu horeysa waxaa ka bilaabeynaa forex. maxaa la lahaa forex? waxaa la lahaa meeshaan ku qeexa forex waa suuqa caalamiha oo looga shaqeysta adduunka oo dhan looga shaqeystaa, wuxuuna ku saabsan yahay forexna waxaa loo soo gaabiyey ereyga loo soo gaabiyey forexka waxaa loo soo gaabiyey FOR-ta furayna laga soo gaabiyey X oo ugu dambeysana waxaa laga soo gaabiyey exchange oo micnaheedu yahay sarifka lacagaha qalad. yacni adduunka oo dhan lacagaha wadamada dhan lacagahooda maadaama oo waa la isku sarifaa ma karata, oo haddii la aasanayo ama xiriira ka dhexey kara ama ganacsiga ka dhexey kara ama qofka uu aasi karaa hadduu aadana lacagta shilin Soomaaliga ma isticmaalayo, oo lacagta hadduu Maraykanka tago lacagta Maraykanka isticmaala, hadduu Shiinaha tago lacagta Shiinaska isticmaala. marka lacagahaas qaabka la isku kala sarifayo, marka waxtarna waxay ku saabsan tahay online waaye oo lacagaha lagu kala sarifaa adigoo online joogo. oo kaliya maxaa u baahan tahay computer iyo telephone aa u baahan tahay. sidoo kaleeto sida ugu shaqaysatana waxyaabo kaleeto lacagihii iyo haddii ahaado broker iyo waxyaabahaas u baahan tahay oo ugu dhex shaqaysa. marka forex maxaa la dhahay adi yacni suuq caalami waa maadaama caalami yahay inta lacag oo ka shaqayso maxaa lagu qiyaasaa 6.6 trillion lagu qiyaasaa maalintii calaa maalinkii lacagta oo laisku kala bedelo karo ama laisku kala bedesho. hadda 6.6 mar hore ahayd, laakiin hadda inay maraysaa saafila 7 inay gaariso 7 something inay gaariso, laakiin hadda meeshan 6 aan ugu qoran. average daily trading volume-ka waay, ma ahan bil iyo sanad iyo waxaas ma ahan, maalinka lacagta laisdhex mariyo macnaha oo laisku kala sarifta ama laisku kala iibsado. idminas xajmigiisa meeshaasaa ka dareemaysaa. meeshaan oo kaleeto forex markeeda meeshaan ugu soo qoray. waana bari doonaa seshano gaarahu leeyahay maadaama adduunka caalamka meel kala duwan looga isticmaala, yacni time zonka isku mid ma noqonayso, oo anagoo kaleeto xiliyada wadamada waa laysku soo horakacaa macnaha, yacni Maraykanka iyo shabalka ahaa Africa iyo Asia iyo meelahaas oo kaleeto waqtiyada way kala duwan yihiin. hadda kan oo kaleeto ugu horeeyo New York stock waa suuqa oo Maraykanka waa xilligu furan yahay oo gaar ah. session market session allaha waa bari doonaa insha Allah, intermediate-ka ku qaadi doonaa. laakiin suuqa oo Maraykanka oo kaleeto 22.4 bilyan aa laisku mariyaa allahay. average waa the estimation waaye. Tokyo oo kaleeto suuqa oo maxaa oo Japanka iyo Asia waaye. Japanka waaye waxaa laisku mariyaa 18.9 bilyan, Londonka 7.2 bilyan. marka xajmigiisa intaasaa ka dareemi kartaa oo suuq xajmi said u leh waaye. dad kala duwanaana isticmaalaan oo waxyaabo kala duwanaa loo isticmaalaa. maxaa isticmaalo dad oo caadi ah retail traders aa lahaa. hadoo kaleet adi waxaa baranaysaa as retail inaa u shaqaysato oo tafaariiq inaa u shaqaysato. dad oo hedge fund jiro lacag waaweyn wato, bankiyaa jiro oo ku trade kareeyo oo caalamiyaha. sidoo kale central banksaa jiro oo wadan walbo banki uu leeyahay oo central banks uu leeyahay. central bankiyo badanaa jiro, marka waa laga shaqaysaa meel oo laga xamaasho waayo. marka maadaama forex maxaa lahaa intaas waaye aan kusoo gudubno. how to trade forex sidee loogu ganacsadaa macnaha. forex horta way kala duwan tahay. si isha balka ahaa maxaa jiro suuqyo oo kala duwanaa jiro, oo ha ahaado forex ha ahaado option ha ahaado future ha ahaado, waxyaabahaas oo kaleeto way kala duwan yihiin. laakiin forex gooniyaha haddii loo imaado waa lacagihii lagu trade gareeyahay. ha ugu weynaadaan lacagaha oo isha
Maraykanka oo kaleeto lacagaha yuurada oo kaleeto GBP-yada ama lacagaha oo Ingiriiska oo kaleeto Canadianka oo kaleeto Australianka oo kaleeto iyo Switzerland lacagahaas oo kala duwan aa la isku trade gareeyaa marka waxyaabaha sida loo trade gareeyana maxaa waaye lacagahaas la kala bedelina oo adi maxaa wadataa euro wadataa ii sheeg lacagta Maraykanka inaa ku tiri ii sheeg iskaga bedeshaa rabtaa marka laba qeybaa loo kala qaybiyaa oo markaa wax iibinaysa iyo markaa wax soo gadanaysa labadaas ama waa iska iibinaysaa ama waa soo iibsanaysaa isla lacagtii soo iibsanaysaa ama wax oo product hadda la isticmaalayo ma jirto kaliya service le waaye oo lacaga la kala gadanayo marka buy and sell waa makarata buy and sell aa la dhahaa marka sawirkan meesha muxuu nagu qoraya difference way to trade currency lagu trade kariyo maxaa currency oo kaleeto waatana waxkana lagu soo qaatay future oo kaleeto waa suuq kaleeto gooniyaha oona forex ka mid ahayn options oo kaleeto waa ayagana suuqyo waaye oo lagu trade kariyo ETF kan oo kaleeto spot FX kana maxaa kana anaka retail forex kana anaka retail kan dad iyagu kala duwanaa ku trade kariyo CFD wax la lahaa jiro isbedbedaa jiro waxyaabaa kala duwanaa jiro laakiin anaka intaa u jirnaa maadaama inta ugu jirnana maxaa ku trade gareeyna oo waxa ugu weyn oo ku trade gareeyayno wuxuu noqonayaa waxa ugu weyn oo ku trade gareeyayna wuxuu noqonayaa lacagaha oo isku kala sarifayno lacago kala duwanaa jiro oo badan lacagahaas ayagoo la isku lamaaniyey la isku trade gareeya lacagahan oo kaleeto future iyo waxyaabahan oo kaleeto waxyaabo si gooniyaha loogu trade gareeya waa hadda lacag oo gold oo kaleeto keligiisa lagu trade gareeya ama maxaa lagu trade gareeyaa iyadoo forexna lagu isticmaalana waa jira oo USD lagu xiraayo oilka oo kaleeto waxyaabo kala duwanaa lagu trade gareeya marka insha allah adigana wixii dheeraad ah soo raadi oo intaa kaliya oo ku sheeg kaliya ani bilaa waayo oo introduction le waayo adiga inaa search inaa samaysid la rabaa YouTube inaa bartida la rabaa Google inaa bartida la rabaa intaba inaa samaysid kaliya ani maxay ku noqonaysaa waxyaabaha inaa kaliya albaabkaaga dhigo oo furi ku furo guriga kusoo kala dusaya adaasoo kale arkaysid marka search kale si fiican wax uga fidiyo badan ka daawo labadan qeybaha hadda kusoo koobaya videoga labadan qeyb kaleeto ku xigtana waxaa ka dhigayaa video kaleeto insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh